fadhiga ay maanta yeesheen golaha wakiilada ee Somaliland ayaa guddiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiiladu waxay soo bandhigeen warbixin muujinaysa in la luusaday hanti iyo dhaqaale badan oo ay dawladdu leedahay intii ay shaqeynaysay dawladdii hore ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa ay sheegeen in dhaqaalahaasi ay luusadeen hay'ado mas'uuliyiin shirkado iyo shakhsiyaad kuwaasi oo gacanta ku hayay mashaariic la doonayay in bulshada lagu horumariyo ugu horeyna gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ayaa mudanayaasha ku wargeliyay dhageysiga warbixintaasi intaasi kadib waa kan gudoomiyaha guddiga dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada ee warbixintaasi golaha ka horjeediyay ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada in muddo waxaan gacanta ku haynay xisaab xirkii 2016 taas oo ka dambeysay markaan soo hordhignay golaha warbixintii koobaad goluhu wuxuu naga codsaday oo dib loogu socday warbixinta waxaa naga codsaday inaan warbixin faahfaahsan oo waafi ah aan ka bixino xisaab xirkii 2016 arrintan waxay sabab ahayd booliis waxay qodobkaasi sanadihii isba joogay oo hore ayaa xisaab xidhida ka soo bixisay hanti dowlaha ayaa waxay ahaayeen xisaab xidhiyo isu wada eeg oo aad moodo in la kala dhigtay oo wax cadeymo ah oo gadaamada documentation midna muu lahayn laakiin walilaahi alxamd guddidu hawl adag ayay gashay waxaan guddidani si mug leh uga fiirsatay aad iyo aad u qaadhay warbixin buuxdan ay golaha maanta soo hordhigaysaa oo ku saabsan xisaab xirkii 2016 meelaha ugu muhiimsan ee runtii aan ku guulaysanay in aan wax ka eegno waxay ahayd meelo hore aan ku soo gudbinay ama madaxyo gaar ahaa oo muujinayay in aad iyo aad waxaa loo buuxiyey oo lacag fara badan lagu furay intaan madaxyada aan u gelin mudanayaal waxaan doonayaa inaan dib u milicsano xisaab xirkii 2016 marka aan aad u dhugano buuggeena xisaab xirka waxaad ku arkaysaa ku talagalka dakhliga miisaaniyadda ee dowladda dhexe ee sanadka wuxuu ahaa 1 trilyan 280 bilyan hase yeeshee dakhligaasi muu soo wada xaroonin waxaa soo xarooday 1 trilyan 176 bilyan halka ku talagalkii dakhliga sanadkaasi wuxuu ka hooseeyay 41 bilyan sidoo kale miisaaniyadda waxaa lagu qoondeeyay kharashaadkii sanadkaa bixi lahaa oo waa kharash iyo dakhli isleeg oo wuxuu ahaa 1 trilyan 280 bilyan hase yeeshee kharashkaas lama wada kharash gareeyay waxaa la kharash gareeyay 1 trilyan iyo 200 bilyan halkaana waxaa farqi noqday oo kharashkii ka soo haray 16 milyan haddaba taasi wax weeye waa in yar oo kooban oo aan ka nidhi muxuu ahaa xisaab xirkii sanadkaas ama miisaaniyadda haddaba waxaan u soo daaddegaynaa waa maxay meelaha ay guddidu si gaara ay isha ugu qabatay inay ka ogaato sidee lacag intaa loo khashgareeyay waxaa ka mid ahaa waxa loo yaqaano khasnada guud oo ah madaxa 150 madaxaas wuxuu dhignaa 320 kharashka la khashgareeyay lacagtaas waxaana ku qornaa 25 milyan point 6 ama 25.6 milyan waxaan doonayaa faahfaahin ka bixino lacagta intaa leeg halkee la geliyay waxaan ku horeynaa marka oo khasnada guud hoos imanaya madaxa gobolada bari oo tuulada ah oo loogu talagalay gobolada bari ayaa waxaa lagu kharash gareeyay waxyaabo ay ka mid tahay goboladii bari iyo waxyaabo kale oo meelo fara badan waxaa ka mid ah baabureed iyo hawlo siyaasadeed dhismayaal tigidho safar dabadeed iyo garoonkii roogii loo dhigay garoonka kubadda cagta ee Lascano marka waxaan akhriyayaa meelaha aan soo taagnaa aan sidaan runtii waxa u baahan yihiin in aad loo dhigto haddaad eegto sida shaxaysan ayaan u dhignay ee loo khashgareeyay tuubbaska gobolada bari waxaa arki karaysaa in gaadiid loo iibiyey
agaasimaha xisaabaadka madaxtooyada oo isagana lacag lagu kharashgeliya hawlo siyaasadeed oo isagana laga sii madaxa waxay kalaysaa dhisme dugsi xarun caafimaad oo laascaan laga hirgeliyey waxay kalaysaa dhisme saldhig booliis oo laga fuliyey tuulada ormogeys dhisme laami ah oo laga fuliyey 6 kilomitir ah oo laga fuliyey magaalada laascaanood iyo dhisme xarunta RRU-da ee gobolka Sanaag iyo weliba tiya hirgelinta arrimo siyaasadeed oo markaa uu sameeyey xogayaha madaxweynaha iyo iib gaari dibdibis oo gobolka Soomaal waxa kaloo lacagta laga fuliyey dhisme saldhig booliis oo laga sameeyey tuulada Daryaale iyo Dhexdheer rooga garoonka kubadda cagta ee Laascaanood waxa kaloo laga fuliyey dhisme lagu kordhiyey garoonka degmada Xudun dadalgelinta arrimaha siyaasadda iyo tigidho safar dabadeed mid walba qiimaheeda meesha ku qoran waxaana runtii guud u soo baxday lacagayoga meesha ku qoran inay qaar aad loogu taxtagay oo ay ka badan tahay marka loo eego shaqada la fuliyey waxa ka mid ah garoonka la dhigay garoonka kubadda cagta Laascaanood waxaa ku baxay $182,000 waxaana fulisay shirkadda loo yaqaano marxaba jiraadkii waxa kaloo runtii aad la yaabnay oo caajin noqotay dhisme lagu kordhiyey garoonka degmada Xudun oo ay ku baxday $19,000 oo quraantii markaan ka wareysanay dhismaha cidnood akiisa waan weydiyaa waxa kaloo muhiim ah oo doonaya halkan inaan ka xuso qaybta intaan ka bixin oo aan doonaya inaan isu taago runtii seen hore u aragnay laba tuubers waxa lagu talagalay gobolada bari in lagu horumariyo marka waxaan soo jeedinaynaa in aanay ka bixin xaydaanka tuubersadko gobolada lagu talagalay waxaan u gudbaynaa meesha labaad ee lacag ku badan la geliyey waxa weeye dhismayaasha waxa la geliyey marka la eego oo aad loo dhigto xisaabinka waxa weeye 7.5 milyan baa la geliyey dhismayaasha qaranka loo dhisay sanadkan waxa ka mid ah dhismaha xafiiska BFM-ka ee wasaaradda maaliyadda waxa ka mid ah dhismaha garoonka kubadda ee Shulaac haddaad eegtaan beejka afraad marka laga hadlayo garoonka kubadda cagta ee Shulaac markaan isu geynay lacagta la siiyey garoonka waa $194,000 xataa dhulka waxa ku deeqay reer Shulaac baa ku deeqay oo beerta lahaa lacagta intaa leegna dhismo maanta ka socda ma jiro marka waxa loo u baahan in aad u dhigto waxa loo dhigay lacagta ninka leedo nimcaan cabdi iyo muxuu ahayo shirkadda loo yaqaan bidar sawirkaas waxa kaloo halkan aan ku xuso dhismaha loo dhisay rugta ganacsiga ee dowladda Soomaaliland $102,000 ku baxay dhismaha deerka garoonka Wajaale taana runtii waan soo eegnay dadkii meesha degan waxay noo sheegeen in garoonka isagoo deerkaasi noo dhamaanaya in muxuu ahaa ay dowladdu noo timi markaa dibadda intii ka dhisay ay dhamaystirtay laakiin halkan waxaa ku qoran in lagu kharash gareeyey $47,000 dhismaha deerka dugsiga hoose dhexe ee Dhexdheer oo $20,000 ku baxday dhismaha laba qol dugsiga hoose dhexe ee Dila oo ay dhisay shirkadda Sunrise Construction dhismaha jidka Burco isaga laftiisa dhismaha jidka wuxuu noqotay legacy oo ilaa hadda waa qabyo oo isaga warbixin gaar ah ka sameeyay waan soo eegnay waxaana jirta xisaab xidhka 2016 waxa ku jiray $180,000 ugu jiray waxaa noo soo baxday baaristaydii in ay dowladda iyo shirkadda dhisa oo loo yaqaano Baraka Group Construction in lagu heshiiyey in kharashka ku baxaya noqoto jidka Burco $1.5 milyan waxa kaloo jira dhismaha jidka Boorama iyadana waa legacy kale oo u baahan runtii muxuu ahaa halkan waxa dhistay shirkadda loo yaqaan Bidar Construction waxay qaadatay $200,000 sabab Boorama war haysan waan tagnay taasna jidkaas isagana lama dhamaystirin lama qabyo ma jiraya oo saarnay waayo dhismaha hawlaha guud ee gobolka Togdheer waxa loo sameeyey muxuu ahaa runtii dhismaha loo sameeyey wasaaradda hawlaha guud ee gobolka Togdheer
construction dhistay waxaa ku baxday meesha waxaan soo aragnay uma dhiganta lacagtaas waxaa ku baxay $105,000 baa lagu khasray dhismaha wasaaradda maaliyadda gobolka awdal waan soo aragnay $7,000 baa ku baxay dhismaha wasaaradda beeraha ee laascaanood waa okay dhismaha dugsiga xirfadlayaasha ee bohode kaasna ma jiro waxaana ku baxay $2,000 dhismaha guriga madaxweyne xigeenka dhismaha guriga guddiga kuwaas waxaan dhismayaasha aan soo aragnay qaybta saddexaad ee waxa weeye deymaha qaranka mudanayaal madaxa deymaha qaranka waxaa lagu kharash gareeyey 1.6 milyan $1.6 milyan ya waxaan u bedelay dollar 1.6 milyan bay noqonaysaa haddaba deymaha qaranka waxa xaqiiqo oo dhaba wasaarad kasta waxaa la siiyey miisaan qaran baa la siiyey waxaa loogu talagalay sanadka inay wasaaraddaas ama hay-adda dowladda inay isku fillaysiiso lacagta miisaanada ee qaaday haaseesh waxaa noo soo baxday inay deymo qortaan waana lagu leeyahay waa dad deymii laga bixiyo oo iyadoo marka aan lagu xirin maxaad lacagtiinii miisaanada laysay oo isticmaal weyne waxaa ka mid a meelaha deymankaas aan kusoo aragnay iib doon loo iibiyey ciidanka xeebaha qaranka yuusuf cali cusmaan shakhs baa la siiyey waa isku $20,000 in lagu lahaa wasaaradda biyaha kharash ka dhintay markab shidaal oo la celiyey oo la siiyey kaloo yaqaana cali ibraahim ciise $6,000 iyo guudda doorashooyinka qaranka oo la siiyey $179,000 oo deymo agale ah runtii ka guddi ahaan waxaa noo soo baxday runtii inaan loo baahnayn in qarankani deymahaas inuu galo loo baahan yahay in cid kasta ay ku filaato in miisaanada qaranka wixii looga igmaday inay ku khartarayso qaybta u dambaysa waxa weeye iibsiga hantida ragta oo ah waa madaxa 2.7 waxaa lagu kharash gareeyey $4.8 milyan lagu kharash gareeyey taasna waxay tahay waa hantida ragtada maqasho waa qalabyada adeega ee xafiisyada iyo muxuu ahaa wasaaraddu ay leeyihiin waxaa noo soo baxday wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa waxaa ay iibsatay shaybaarka waa la soo weynay waa $14,000 baa ku baxday shaybaar kale oo ah dowrista tayada cuntada oo ay ku baxday $100,000 kaana waxaana waxa la soo iibiyey hadda arki lahaydeen waa yaabi lahaydeen waxaa kaloo ugu caajibsan garoonka digista rooga garoonka kubadda cagta ee Boorman waxaa qaaday ninka loo yaqaan Axmed Xaafis Daahir waxaa ku baxay $8,000 roogaasna intuu ma dhigmo qiimaynta kale waxaa ku xiga garoonka kubadda cagta Badco magaalada Badco waan tagnay garoonka kubadda roog yaalla ma jiro waxaa lacagtaa qaaday ninka la yidhahdo Cabdiraxmaan Xasan Diiriye waxaanu qaaday $8,800 haddaba waxaan doonayaa haddaan ka soo gudbo intaa waxa aanu runtii marka warbixinta baaraynay waxaa jira waxyaabo fara badan oo kharashaada oo runtii aan ka tagnay oo macquul noqday waxaa ka mid ah dad caafimaad ahaan kharash loo siiyey waa okay baan nidhi ciidamada qaranka waan ka gudbay odayaal ka yimi gobolada bari oo sooriyooyin la siiyey waa ka gudbay gudda joogta ee golaha wakiilada oo iyadana xoogaa halkaa meelo laga siiyey iyadana waan aragnay iyadana waan ka gudbay safaro saxay waa aragnay dhakhtarka cisbitaalka guud ee muxuu ahaa hargeysa isagana waa aragnay in wax loo dhisay waa ka gudbay iyo muxuu ahaa wasaaradda maaliyadda oo la qaatay shidaalo dheeraada iyo telefoonno ay ku hadleen intaa kuwaas oo dhan xooga maanasaan u gudbay waxaan u gudbaynaa warbixin yaroo kooban oo aan ka diyaarinay shirka Burco mudanayaal san caraba ku dhuftay shirkadda loo yaqaano Baraka Construction waxay noo cadaysay inay dowladda ku heshiisay $1.5 milyan dhismaha shirka Burco san caraba ku dhuftay waxaa miisaanadii 2016 ugu jiray $100,000 waxaa kaloo noo sheegay in shirkadda Habshiil ay siisay $540,000 oo ka timi wasiirka howlaha guud ee guriyada oo runtii muxuu ahaa iibiyey markaa wuxuu isagoo magacii dowladda ku shaqaynayo ayuu wuxuu hantida ummadda waa tidee muxuu ahaa sida qarabka oo loogu talagalay sameynayay $920 xogahan kale wax ka mid ah in la siiyey liinka booliiska ee Hargeysa $920,000 wasiirka
xidhka ayaa wuxuu bixiyey muxuuha waxa la yidhaahdo discount $300,000 taasoo markaa noqonaysa inay soo hadhay $620,000 halka ka ahayd lacagta in lagu wareejiyo albaraka construction waxaa lagu wareejiyay noo caddeeyeen $540,000 keliya halkaana waxaa ka maqan $800,000 halkaba marka runtii iyada waxaa loo baahan yahay inay weli ay qabya tahay jeelka burco isoo ka socda ay qabya tahay ma hayno wixii ugu jiray xisaabtankii 2017 ma hayno insha Allah tacaala markay timaado ayaan arki doonaa waxaa ku jira laakiin saan idiin sheegay waa 1.5 milyan ayaa xukuumaddu heshiis kula gashay xukuumaddii hore heshiis kula gashay shirkadda intaa ka bacdi waxaan xoogga saarnay haddaba sideebaa wax looga bedeli karaa xisaab xidhaas soo socda maynaan samayn karin sanadaha faraha badnaa ay soo socday isaan wuxuu waday si ka duwan maynaan u samayn karin maynaan la jaan qaadi karin sayibka caalamku u shaqeeyo runtii waxaanu la galay kulana daba farabadan saba jooga xafiiska hantidhowraha guud ugu dambayntii waxaan isla garanay qodobada soo socda inay noqdaan xisaab xidhka 2017 in laga helo oo ay noqoto wuxuu adeegaya qaranka iyo wuxuu adeegaya waajibaadka qaran ee golaha mar walba ka gudanayo xisaab xidhada waxaa ka mid ah waxyaabaha ku shiray kow buugga xisaab xidhka waxaa ku caddaan doonta dakhli kasta oo la galay oo ka baxsan miisaan sanadeedka ee golaha wakiilada asxiyan isagoo faahfaahsan waa inay gugtaan eegaan dakhliga aan ku jiro meesha waxaa kaloo aan sa garanay qodobka labaad buugga xisaab xidhka waxaa lagu soo bandhigi doonaa dhammaan wixii khaladaad xisaabeed ee la galay sanadka wayna iyagu sii diyaariyaan arkaan xisaabaadka khaladka isku jiraan saddex xisaab xidhka waxaa lagu soo tiro koobi doonaa dhammaan tirada iyo lambarada bugaagta lacag qabashada ee sanadka ay dowladda isticmaashay nambaradii bugaagta iyo bugaagtii waa la helo si marka haddii buug kale ay cid kale isticmaashay oo waa in marka halkaa laga helo oo lagu dabato waayo waxaa jira dad saa marka qaarkood waqtiga qaar sameeyey inay bugaagii samaysteen oo dadka lacag ka gurtaan qodobka afraad xisaab xidhka waxaa lagu soo bandhigi doonaa mashaariicda ay hirgeliyeen hay-adaha caalamiga ee ka baxsan miisaaniyadda ee ay sameeyeen sanadka iyo natiijooyinkii baadhisooda haddaanay ku jirin xisaab xidhka waa inay hantidhowruhu keenaa muxuu ahaa sanaadiiqda kale ee lacag laga kharash gareeyey ama meelaha kale accounts kale ee lacag laga kharash gareeyey ee hay-adaha intirash keeneen iyo baadhistooda waa inay kusoo lifaaqaan xisaab xidhku ay keenaan waxaanu isla garanay sanadka 2017 oo imka soo socda in 5 mashruuc oo ay hirgelisay banka adduunka inay xisaabkooda keenaan qodobka shanaad xisaab xidhka waxaa lagu soo koobi doonaa dhammaan dhismayaasha la hirgeliyey ee la dhisay kuwa la iibiyey sarnaaliyeedka waydan way la helaa lix waxaan kaloo isla garanay xisaab xidhada waxa lagu soo qeexi doonaa dukumentska dowladda isticmaashay sida kuwa gaadiidka fiisaha dalkugalka lacagta laga uriyey baasaboorta somaliland canshuurta road taxka tirada gaadiidka ka iibsaday lacagaha loo qoonday horumarta ee la khashgariyey inay dhammaan soo bandhigaan lacagaha sanadkaa ka soo xaratay iyagoo si gaara u qofas waasa qaaditaan waxaa kaloo ku jirta markaan leeyahay gaadiidka la iibiyey guddida qandaraasada baada halka inaan uga diro fariin oranaysa inay inkastoo xerkii qandaraasada gacanta lagu hayo inay warbixisanaad ciidan ay samayn doonaan ay ku faahfaahinayaan gaadiidka ay qaranka u iibiyeen sanadka warbixin ay u keeni doonaan golaha waxaa qodobka toddobaad saaxiib waxaa kaloo ku muujin doonaa wixii talooyin sare loo jeedinayo inay ku dhaqmaan saraakiisha maamula xisaabaadka dowladda si loo horumariyo nidaamka miisaaniyadda xisaabaadka waxaan ku codsanay inay keenaan fikir ku saabsan qaabka loo shaqeeyo nidaamka xisaabaadka ee qaranka Soomaaliland sidee loo horumarin karaya dad waxaan isla qaadanay inay talo sare keenaan qodobka ugu dambeeya sideedaad waxaa lagu hirgelin doonaa dhammaan qodobada ka xusan xisaab xidhka 2017 ee hadda gacanta ku haysto xafiiska hantidhowraha guud oo aan filayno inay maalmaha soo socda insha Allah tacaala inuu golahan dhowr keeni doono ugu dambeyntii soo jeedinaha guddidu waxay soo jeedinaysaa in hantidhowraha guud iyo xigaalyaha qaranku ay baadhis foogan ku sameeyaan liisaskan haysan ee aan soo bandhignay maadaama
lahayn awood sharci oo u jideynaysa inay soo dacweeyaan ama xidhaan qofku takrifalay hantida qaranka waxaa kaloo qodobka labaad soo jeeda waxa weeye waxaa nooga soo baxday baarista runtii intaan hawsha ku jiray in meelo fara badan oo aan waafaqsanayn sharciga waafaqsanayn in loo fuliyey muxuu ahaa ama dhismayaal ama lacag la qaaday oo aan midna accountability iyo ciddii ka xisaabada ama ka ilahayd meesha aan dhicinba taasna iyo waxa kaloo ka mid ah alaabooyin la soo iibiyey waxa kaloo ka mid ah meelo la dhisay oo aan xataa tarta loo gelin oo shirkadu la iska siiyey iyo meelo la sameeyey iyo meelo aan lama samaynba iyo meelo la sameeyey oo lacag waxaa aan u qalmin dhammaan waxaasoo dhami inay ku gadaaman yihiin xilka waxaa kaloo guudda soojada ka mid ah waxaan si gaara u soo jeedinaynaa xeraalyaha guud runtii in baaris sameeyo magacyada iyo waxyaabaha aan soo bandhignay insha allah tacaala maalmaha soo socda inay hawsha ayna galaan waan xeraalyaha ku codsanaa ka ugu dambeeya kusoo gabagabay waxa weeye qodobka afraad guddidu waxay u mahadnaqaysaa oo halkan aan uga mahadnaq ballaaran uga jeedinaya cid kasta oo ka qayb qaadatay inta gudda hawsha waday iyo meelaha ay mareen baan runtii mahadnaqana oo ugu horeeyo hantidhowraha guud ee qaranka iyo xafiiskiisa iyo shaqaalihiisa iyo hawladiisa iyo xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka oo isagana xafiiskiisa qayb nagala qaatay hawlahaas soo bandhigna allah mahad leh waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu